بصمة شباب بصمة شباب بصمة شباب بصمة شباب سنحطم اليأس المدمر بالرجاء ونمد جسر الحب بالأشواق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا أرحم الراحمين. أما بعد، أحييكم بتحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. magacaygu waa xasan axmed xuseen. waxaan insha allahu tacaala halkan idinla sii wadi doonaa barnaamijkeenii inoo socday ee hogga dhalinyarada. walaalayaal, sidaad ogsoon tihiin, dhalinyarada haddii laga hadlo waa mawduuc aada iyo aada u weyn. waa mawduuc run ahaantii u baahan dhalinyaradeena hadda jirta ama waqtigan marxaladan adag ay marayso ay u baahan yihiin in laga waramo. insha allah dee kolley hadal badan odhan maayo. 4 qodob oo aada xasaasi u ah dhalinyaradeena in hadda loo sheego ayaan insha allahu tacaala tilmaami doonaa. qodobka koowaad, waxaa si guud uga warami doonaa dhalinyarada. walaalayaal, dhalinyaradu waa marxalad muhiim ah. waa marxalad siduu nabigeenu calayhi salaatu wasalaam inoogu tilmaamay in la weydiin doono qofka yowma qiyaamaha marxaladaas. waa kii xadiiskii caanka ahaa ku yidhi wa shabaabihi fiima afnaah, yacni dhalinyaronimadiisa waxa uu limiyey. qof walbo anaga naga mida waa la weydiin doonaa. carabtu xataa waxay ku maamaadaa, yani qofku markuu da-da weyn gaadho wuxuu ku maamaadaa alaa layta shabaabu yacuudu yowman, yani qof dhalinyarnimadu yani hadday maalin uu soo laabato waana waxaan dhici karayn, yani mana soo laabayso. wayna ogsoon yihiin, laakiin waxay ku hamiyaan dadka waaweyn had iyo jeer inay dhalinyarnimadu maruu usoo laabato. waayo waa marxaladu qofku maskax ahaan, awood ahaan, fikir ahaan wuxuu leeyahay midhsan yahay. marka naftaydii nafihiinuba waxaan ku dardaarmi doonaa insha allahu tacaala inaan marxaladda ka faa'iidaysano sida ugu habboon. mawduuca labaad, waxaan ka warami doonaa insha allahu tacaala maraaxilu shabaab ama qeybaha ay u qeybsanto dhalinyarnimadu. waxaa la tilmaamaa inay 4 qaybood u qeybsanto. qeybta koobaad oo ah marxalatu tufuula, waa marxaladda ilmaha yar. waxay ka bilaabantaa qofku marka uu dhasho ilaa inta uu qaangaadhayo. marxaladaas marxalatu tufuula loo yaqaana. ilaahay kii qur-aan ku tilmaamay waidaa balaqa alatfaalu minkum alxulm. marxaladda labaad oo ah marxalatu siba, oo waxay bilaabataa qof yani qaangaadhka ka bacdi. waa marxaladda wiilnimada ama kuraynimada. ilahi subxana wa tacala waa kii qur-aanka inoogu tilmaamay wa aataynaahu alxukma sabiya, nabi yaxya. marxaladda saddexaad waa marxalatu lfata, waa marxaladda doobnimada sidaynu u naqaano. waa ilaa inta la gaarayo 25 jir. qaaluu samicnaa fatan, waa kii ilahi subxana wa tacala qur-aan ku yidhi qaaluu samicnaa fatan yadkuruhum yuqaalu lahum ibraahim. markaa ibraahim ilahi subxana wa tacala wuxuu ku tilmaamay fata oo ah kuray buu ahaa ama wiil. marxaladda u dambeysa waxaa loo yaqaana marxalatu shidda aw marxalatu lquwa washabaab. waa marxaladu qofku dhalinyar dhamaystiran uu ku jiro, ama aan yidhaahdo waa marxaladda shabaabka ugu dambeysa. waxay ku istaagtaa 40 jir. markaa shabaabnimadu waxay ku istaagtaa 40 jir. 40 jir wixii dhaafsan shabaab looma yaqaano qofkaas. mawduuca saddexaad, walaalayaal, waxaan sheegi doonaa qofka dhalinyarka ah inuu ku habboon yahay hogaanka ummadda inuu qaban karo. marka dib haddii aynu usoo laabano dadkii naga horeeyey ama asxaabta aan yidhaahdo ama dadkii furtay islaamka, waxa ay u badnaayeen dad dhalinyar ah. haddii aynu taariikhdooda ogaano ama baadhno, walaalayaal, qofku markuu dhalinyar yahay maskaxdiisu farash weeyaan. waxaway creative la iman kartaa ama wax abuur. marka dad badan waxay aaminsan yihiin yani qofka weynunba experience u leh ama isagunbaa ku habboon inuu ummadda hogaamiyo ama hogaan meel qaban kara. taasna waa fikir khaldan. ilahi subxaana wa tacala wuxuu ku tilmaamay qur-aanka wa aataynaahu alxukma sabiya, iyo qisadii caanka ahayd ee ka dhex dhacday nabiyullaahi sulaymaan oo nabiyullaahi daa-uud, ee markii ay ariga u yimaadeen ilaahi subxana wa tacaala wuxuu tilmaamay in fafahamnaaha sulaymaan. ilaahi wuxuu fahansiiyey sulaymaan xukunka.
markii la kala saaray ma uu fahansiin Daawud. Waayo sababtu uu fahansiiyey Sulaymaan waxay ahayd Sulaymaan waxa uu ahaa nin dhalinyar ah. marka hoggaanka ummaddeena walaalayaal diyaar baynu u nahay inaynu hoggaamino. qodobka u dambeeya waxaan kusoo gabagabaynayaa walaalayaal, yacni qof walba oo dhalinyar ah hami buu leeyahay. qof walba oo dhalinyar ah waxa uu leeyahay mustaqbal, waxa uu leeyahay hiigsi inuu gaadho. qaabkeen u heli lahayn? hal shay baan ku helaynaa walaalayaal, inaynu cabsida ilaahay la imanno. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamay qur-aanka, waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja. qofka ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsooda, ilaahay subxaana wa tacaala albaabo badan buu furaa. albaabo badan oo ka xidhan ayuu ilaahay subxaana wa tacaala u furaa. marka haddaad ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsooto, ilaahay farjigaaga ama hamigaaga waxa ku jiro dhan ilaahay wuu kuu furfuraya. taasna waa ballan. waayo culimmadu waxay ku tilmaamaan in yacni zawaalu lkowni ahwanu cala allahi an laa yuxaqiqa wucuuda almu'miniin. yacni ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu la fudud adduunka oo dhan halaagiisa isagu ballanta mu'miniinta oo fiil. ilahay muxuu noo ballan qaaday aayaddii anigii soo sheegay, waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja. qofka ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsooda, haddaad ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsootid oo jidkiisa martid, ilaahay subxaana wa tacaala wuu ku siinaya. intaasaan kusoo gabagabaynayaa. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu.